Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan akhyaarta na daawanaysay. Maanta waxaan rabaa inaan idinkaga sheekeeyo safarkeygii baadiyaha aan ku taga Kenya ee baadiyihii la yirahdo Ndaraku Soomaalidana ay u taqaano Handaraka. Safarkaas horta wuxuu ahaa safarkii iigu yaabka badnaa, iigu daalka badnaa oo iigu cajiibsanaa ayuu ahaa. Safarkaas waxaan ka baxay magaalada la yirahdo Mombasa 6 saac maalmeedaan ka baxay oo duhurkii. Waxaan ka raacay baabuurtan la yirahdo matatuga ee dhahan Kenya oo baabuurtan public transportkaan raacay. Waxaan u socday adiga almost 2 saac iyo bar camal u socda haddii aan qiyaaso ma xasuusan karo exactly, laakiin 2 saac iyo bar kamaysan yareen. Markii aan tagnay Samburu halkaasaan ku dukanay maxaa la yirahdaa salaadii casir. Salaadii casirka markii aan dukanay kadib waxaan ka raacnay from Samburu ilaa iyo meeshaas la aadayo waxay isku jirtaa haddii aan qiyaaso masaafo dhan adiga 60 kiiloomitir ay isku jirtaa. 60 kiiloomitir aa isku jirta ma xume, ma lahan gaari loo raaci karo ma lahan, waayo meesha waddo waxaa waaye oo jay ah waaye, waddadana aad u yar tahay, waana calculation waddada waa waddo oo very rough ah waaye. Marka xagga infrastructure-ka ama maxaa la yirahdaa xagga oo waddooyinka aad ayay meesha uga dhimatay. Waxaan ku khasbanaaday inaan ka dego gaarigii oo aan ka raacno halkaas mooto. Mootadaas ayaan lacag waxaan siinay adiga 1,100 shilin aan kula heshiinay, laakiin barnaamijkii gadaal dambe uu iska bedeli doonaa. Mootadii say noo waday meel waxaan tagnay oo la yiraahdo meeshii aan rabnana aanan ahayn, meel ka sokaysa ayaan tagno oo baadiye ayaa mootadii nooga jabtay. Mootadii markii meeshii ay nooga jabtay bal waa tan ee ila daawada. Ujeedii meeshaan waa baadiye cad waa 4 aqala meeshan ka taagan ninkaan. Dadkaan meeshaan degan yihiin wax qayle iyo baabuur guux iyo qajajac iyo mooto iyo waxaas la shaqo kuma laha dadkaan. Dhulkaas oo dhan meeshaas markaas aan taagano video aan ka duubay waa meeshii mootada nooga halaawday. Ninkii oo mootada nagu waday, maadaama mootada oo aniga iyo adeerkay aan isla soconay oo meesha xoolaha ninkii iska lahaa aan la socday, 2 qofood ayaa gadaal mootada ka saaran. Ninka darawalka oo mootada wadana maxaa la yirahdaa waa nala saaran. Marka hal mooto 2 lugaley ayaa 3 qofood ku saaranahay. Marka waxaa dhacday mootadii inay taayirka ka halaawdo. Taayirka markay ka halaawday meel xun waana u jeedaan oo xilli waxaa waaye oo casar liiq ah oo maxaa la yirahdaa qorraxdu ay dhici rabto waaye. Meeshaasaa mootada nooga halaawday oo mootada taayirka ayaa wuxuu ka noqday banjar ka noqday. Ninkaasna doqonnimadiisa wax uu wato oo ilaahay abuurta ma lahan oo taayirkaas uu ku sameeyo. Waxaan ku qasbanaana marka inaan ninkii inuu dhaha maadaama culayska haddii laga dejiyo xoogaa ay baashi soconayso inuu baashi keligiis inuu kaxeeyo uu ka soo raadiyay meesha tuulada maxaa la yirahdaa aan joogno. Meeshaas aan joognay oo weliba guriga waxaa laga yaabaa hal guri ah wuxuu ku yaalaa halkan, guriga kale waxaa laga yaabaa almost 1 kilomitir inuu u jiro. Marka ninka wuxuu yiri mootada inta uga dega aniga baxayo waxaan soo raadinayaa uu yiri taayirka qof noo bahal oo taayirka lagu hagaajiyo aan raadinaya. Meeshii aan uga degnay anagoo meeshii ku yaaban oo qorraxdana nagu dhici rabto oo cidina aanan jirin. Maxaa la yirahdaa meeshii aan ka imaanana aan ka soo fogaanay ayaa xaaladda ay nagu cakirmatay oo weliba laga yaabay in habeenkaas haddii oo ninkaas ay noo soo laaban waayo xataa, maadaama oo ninka durab waa naga tegi karaa ninka meeshuu yaqaanaa. Meeshii waxay noqotay inaan ku silacno oo aan ninkii aan cabbaar adiga almost waxaan sugnay adiga 1 saac camal aan sugnay meeshii aan taaganahay annagoo meesha ku wareersan oo ninkii aan sugayno. Waxaa nagu dhacay waxa Soomaalidu waxay tirahdaa maxaa la yirahdaa adigoo hooyo lahaa lagu soo hoydo. Anagoo xaaladii saas nagu cakiranto ninkiina aan yaabanahay inuu naga maqan yahay yaa carro roob isqabsaday. Bal taasna iyadana ila daawada. Umepata? Hakuna kitu wameondoka wale ni kama.
meeshaana mootada aan naga naqatay meel xunna waa joognaa. Kama ingekuwa hii iko na kile kitu yake ya kujazia, hata ningejaza tayari. Umepata? Hakuna hata eti wameondoka wale wenye pamba. meeshaana mootada aan naga naqatay Hata pale nyuma. meel xunna waa joognaa. Kama ingekuwa hii iko na kile kitu yake ya kujazia, hata ningejaza tayari. ninkii waa noo soo laabtay. run ahaantii markuu soo laabtana waxaa waaye horta aadan ugu faraxnay, laakiin marka dambena bad news ayuuna siiyey. wuxuu yidhi saan usoo wareegayo oo meel walba aan usoo fiirinayo waayu dhaha wax oo baasha haysto dadkii o dhan waxay leeyihiin uu yidhi oo meesha tuulada deganaayeen maanta waxay jiraan uu yidhi maxaa la dhahaa waxa la yidhahdo family meeting oo iskuol oo barnaamij ka jira ayay aadeen. marka wuxuu yidhi wax oo dad aan la soo kulmo oo ilaahay abuurta ma lahan. marka wuxuu yidhi baashaan maanta waxaa waay xaaladeeda saasay waa cakiran tahay. annagoo meesha ku yaaban ninkin waxba soo waayey yaa waxaan dhan warniyo baashaan bal mar kaleto ku laabo meelahan soo raadi, anaga meeshaan ma seexan karno. annagoo meesha aad iyo aad ugu welwelsan oo xaaladeena maxaa la yirahdaa meeshan dhulkan dhul aad garanaysa maaha. meeshan waa meel oo dad giryaama iyo waxaa degan dadkana yirahda duruma iyo layirahdaa meesha degan. marka annagoo xaaladda ku yaaban oo maxaa la yirahdaa talada naga wareersan tahay ayaa hadda videogan ayaan duubay, bal asagana ila daawad hadduu ila yaraado. khyaare maanta waxaan joognaa meel aanan ka saynin anaga dhan xataa adeerkeeda joogo waa kan. meeshaana mootada nooga halaawda. mootada waxay dhahayd meel meeshaan aadeynaa. adeer waxaa wada ilaah nagu amaansada meeshaan caawa. roobna intoo naga haya roobkan waa kaas. ma itumisaa ujeeda kamera inta soo jeeda. waxaa waaye faataxada nagu soo kaba. wallaahi waxaan joognaa meel intana nooma dhow magaaladii meeshii aan u soconana nooma dhowno marka, laakiin insha allah waxaa waaye faataxadan kaasheena insha allah. roobka noo daran leh hareer hadda roobka nagu qabsado meeshaan tii dheer waa ka dhacaysaa. akhyaartay markay xaalad meeshaas marayso adkaartan afka ku qabsanay, qur-aan aan akhrisanay anagoo maxaa layidhaha xaaladaas mar haddii xaaladda noocaas ay marayso oo meel aadan garanayna aad joogto gaadiidkiina kaa halaabo waad dareemi kartaan xaaladiina adinkaba qof musaafirna aad tahay oo qof musaafirna aad tahay. marka ilaahaan baranay maxaa la dhahaa adkaartana waan akhrisanay. markay xaaladda meeshaas marayso waxaa ilaahay noo sahlay oo ilaahay nagu aadiyey nin oo maxaa layirahdaa oo sawaaxili ah oo maxaa layirahdaa oo asagana mooto wato nin oday ah ayaa meesha soo maray. ninkan ku idhaahno warniyaho maanta xaaladan haysato mootada naga halaawda ninkaana maxaa layidhahdaa nin oo qalab sii diyaarsada ma ahane warniyowna caawi. ninkiia mootadii noo hagaajiyey barnaamijkii maxaa layirahdaa taayarka ayuu baashi ka bedelay. markuu baalki tubeka baal waxaa jirta oo intii oo la xoqo maxaa layirahdaa kabacdi koole inta la mariya baal ugu waxeena. ninkan waaba nin wuxuu ahaa dee oo musaafir weligii soo geli jiro mootona wato. marka wuxuu dhahay tuulska amaba laga tagto dhahay haddaa mootaalihita. marka ninkan doqonnimadiisa aniga maba garanayo. calaa xaal ninkii aa noo hagaajiyey. markii uu baalka noo hagaajiyey mootadii meesha ka raacnay. markii aan sii raacna haddana mootadii naga sii jabta mar kaleto. ninkii waan ku xanaaqna waxaan dhaha warniyow lacagtaadan ku siinayna niyow maxaa layirahdaa mooto kale allaha noo sahlay ninona dhaaf. waayo wuxuuna geeyey meel kaleeto tuulo oo yaro u dhow meeshii oo laakiin meel dad ay joogaan uuna geeyey. meesha ayaan mooto kale ka raacnay. markaan mootada ka raacnana maxaa layirahdaa meeshii oo aan tegi rabnay ayaan waxaan tagnay xilli oo maxaa layirahdaa maqrib ay tahay. maqribna maxaa layirahdaa dee xoolihii maxaa layirahdaa wixii dhan ma barnaamijkii aan u tegay meesha inaan soo duubo waxayba igu noqotay habeen igu noqotay, taasoo igu qasabtay inaan meeshii inaan habeenkii aan baryo. oo maxaa layirahdaa habeenkiyaas waa habeenkii igu adkayd oo aan soo arkaan dhihi karaa nolosheeda. waayo waxaan seexda meel oo bac oo kor maxaa layirahdaa aqal oo bac ama bac laga sameeyo, korna bac lagu goglo oo udba laisu suray oo kor bac laga saaray. dhulkana maxaa layirahdaa waxaan firaashanay maxaa layirahdaa bac kale ayaan firaashanay.
habeenkaasoo dhan waxaa nafta ii keena baalka raha ayaa nafta ii keeno maanta dhan go iisoo galayo oo very disgusting raha dadka ma cuno laakiin waa wax oo aad iyo aad looga yaqsado waay raha kuusoo galaaday maxaa lahaa go-aaga adaad qofka yaqaanaa garanayo xaaladaas waa xaalad aad iyo aad u cakiranay noqotay marka bal videogii meeshii aan habeenkii aan seexday dad badanaa isdhihi doono waxaan waa bentiis maxaa lahaa meeshaas ma seexanin bal videogaas naftirkiisa ila daawada maanta waxaa rabaa inaan seexdo aqalkaan ujeedaan ujeedaan duurkaas caaw seexan rabaa aqalkaan ujeednaaco cawjadargeyga waa kala kabay xaggan kusoo siibani insha allah hadduu ilaa yaraado aqalkaas akhyaarta meeshii habeenkii adiga si alla sideena qatabo meeshii ilaahay maxaa layidhahdaa waagi waa noo berisiiyey meeshaasaa habeenkii beriyey subaxii dambo ayaan barnaamijkii ayaan oo xoolihii aan meeshaan u tegay ayaan kasoo duubay barnaamijka sidaas ayaan kusoo qabtay marka haddii aad intaa nala soo gaartay fadlan laigtii subscribe-ka hanala dhaafin waxaan intaasoo dhan oo aan u marnay iyo silacaasoo dhan aan u marnay waa inaan idiinsoo dayno barnaamij aad iyo aad u qurux badan si aad u daawataan adinkoo iska fadhiya maxaa layidhahdaa fadhigiina oo maxaa lahaa barnaamij oo idin madadaaliya inaan idinsoo duubno marka fadlan haddii aad maxaa layidhahdaa videogan uu kusoo gaaro liketa subscribe-ka iyo shareka maxaa layidhahdaa aan hilmaamin sheekadana maxaa layidhahdaa waxaan sii wadi doonaa sidaan meeshaas uga soo laabanay oo aan meeshii kale aan ku tagnay iyadana waa sheeko kaloo aad iyo aad u xiiso badan haddana waxaan idinka tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu